waxaana wanaagsan asxaabtada qalin marka ay barnaamijyadeena Excel ka waxaan idin tusayaa sida functionka VLOOKUP-ka loogu shaqeeyo grade reportiga ama grade-ka iskuulada sida loogu shaqeeyo halkan idinku tusayaa awal waxaan ogeyn sida if function kaliya loogu shaqeeyo aan hore idinku soo tusayahayd markaas VLOOKUP-kana qaabka loogu shaqeeyo halkan ayaan idinku tusaya haddii la yidhaahdo ka tusaale 40 cashar 5 arday iyo 40 cashar in loo xisaabiyo u baahan ilaa halka physics-ku ku jiro ama ku qoran yahay kadib maxaa la yidhaahdaa hadduu konton ardayga wixii ka hooseeya konton iyo wixii ka hoose kana f iga dhig baan leenahay 60 iyo ilaa 60 wixii ka sareeyo d ka dhig baan leenahay 70 iyo 70 wixii ka sareeyana sidoo kale c ka dhig 80 ilaa iyo wixii ka sareeya 90 b ka dhig baan leenahay maxaa la yidhaahdaa average kan weeyaan halkaas waa average halka imanayo yaa lagu 100 qofkii keenana ac yaan leenahay markaas anagoo criteriahan ka tixraacana ayaan marka hore saamka waxaan shaqaynaynaa isu geynta ama wadarta guud equal to ayaan leenahay saam ayaan leenahay saam markaan dhahna kadib sidaasaan waxaa la yidhahdaa u wada dooranayna 4 cashar baan sidaa u wada dooranaa inter ayaan leenahay inter markaan dhahna kadib ka koowaad ayuu noo shaqaynaya markaas halkaas yar baan imanaynaa calaamadda isku tallaa markay isku bedesho kadib ayaan sidaas double click leenahay sidaas hoos ugu soo wada dhacay ugu xisaabinaya bay ka dhigan tahay dhammaantood waa wadartii oo la isku geeyey kan weeyaan ama waa saamkii markaas qaabkan sidaan ma percentage ugu bedeli lahayn ayaan haddana idin tusayaa equal to ayaan leenahay kan koowaad ee percentagekiisa aan shaqaynay ayaanu click leenahay u qaybi baan leenahay imise weeyaan halkan marka la isku geeyo wadarta guud imise noqonaysaa imika tusaale 400 bay noqonaysaa markaas 400 oo lagu dhuftay ayaan leenahay lagu dhuftadu waa shift iyo 8 oo la isku taabtay 100 ayaa lagu dhufanayaa kadib inter ayaan leenahay ka koowaad iyo sidaan noogu shaqaynaya isla sidii oo kale tabtii oo kale aan maraynaa double click ayaan leenahay double click markaan dhahno uu noo wada shaqaynaya dhammaan percentage-kii buu noo shaqaynayaa waana ka halkaas yaalla maxaa la aanu ku base garaynayno maxaa la natiijada ardaydan aan ku base garaynayno weeyaan markaas qaabkii iminka halkii aan u socodka ujeedadeena aan u soconay ayaan isku imanay bay ka dhigan tahay halka ugu dambeysay grade-ka ugu qoran yahay ayaan imanaynaa equal to ayaan leenahay VLOOKUP-kii aan ku shaqaynaynay ee ujeedka dhinaca casharka uu ahaa ayaan halkan imanay ka dhigan tahay markaas equal to VLOOKUP ayaan leenahay double click ayaan leenahay VLOOKUP-ka markaan double click nidhaahno average-kan amase percentage-kan ayaan click leenahay 100 wixii ka badan a inooga dhig ama b ka dhig c ka dhig waxbaan criterion siinana table-keen kaaga soo qaada buu leeyahay halkaas table array-ga aad ka soo qaadanaysa waa halkee buu leeyahay kan weeyaan markaas halkan aan imanaynaa sidaasaan ilaa hoosta u dooranaynaa kadib waxaan fn iyo waxaan isku taabanaynaa f4 ayaan isku taabanaynaa absolute value ayaan xidhaynaa sidaasaan u xidhaynaa bay ka dhigan tahay si calaamadda dollarka oo noogu galo kadib coma ayaan leenahay maadaamaan kan aan u baahannahay natiijada grade-ka kan aan uga baahannahay oo a b c inuu noo soo saaro aan u baahannahay ka labaad ayay ku jirtaa kow laba maadaamay ku jirto waxaan leenahay laba haddaan iminka halkan aan ka dhigno maxaa la exact match aan nidhaahno tusaale 60% halkan nooma yaalo laakiin wax u dhow maxaa 60 uu noo yaal 75 nooma yaal halkan 70 baa yaal marka waxaan leenahay exact match ma oranayne approximate match ayaan leenahay ka igu dhow ee u dhow tiradan u dhow soo qaadan leenahay tiradan ka kaas u dhow soo qaado grade ec ayaan leenahay hal ayaan leenahay 0 haddaan nidhaahno waa exact match oo markaas iminka tusaale haddaan 0 baan nigu tusi 0 haddaan nidhaahno na buu qaar soo saare sababtoo ah iminka boqolkaas eedaas maadaamay boqolka u dhiganto buu soo saaray waa sax 60-kana d maadaama wuxuu soo saaray 60 iyo 60 baa isku beegan halkan laakiin 75 na buu soo saaray sababtoo waxaan dalbanay exact match 0 baan gelinay exact match soo qaad tirada u dhiganta ta halkan taale ee halkanna taale ee isku dhiganta soo qaadayaan leenahay gradeisi sidaas darteed approximate match ayaan leenahay hal ayaan gelinaynaa enter ayaan leenahay enter markaan dhahna kadib uu noo wada shaqaynaya saasaad hoos ugu soo jiidaysaan saasuu kuugu shaqaynaya markaas wuxuu kuu soo qaada tirada ugu dhow maadaama 70 halkan taallo halkan 75 taallo halkanna 70 taallo 75 kuu u soo qaadaya ka ugu dhow iyuu usoo qaaday marka asxaabtayda qaaliga inaad fahamteen baan rajaynayaa goob walba goor walba aad joogtaan khayr iyo idin rajaynaya dhammaantiin